waxay aniga aan qabaa dhowr meelood oo ku saabsan miisaaniyadda marka ugu horeysa wasiirka iyo wasaaradda waxaan runtii dhihi lahaa sida ay u qoran tahay ama ay ugu jirto miisaaniyadda xuquuqdii xildhibaanada halkan joogay ee soo shaqeeyay waxaan qabaa inay khaldan tahay ay miisaaniyadda ugu jirto waxaana loo baahan yahay sida ay hadda ugu jirto si ka duwan in loo geliyo guddiga maaliyaddana waan ka codsanaynaa inay arrintan doodgareeyaan sababtoo ah curaarta kuraasta la soo iibiyey iyo baabuurta la soo gatay iyo maxaanku idhaahdaa meelaha la dayactiray iyo way kala duwan tahay arrintan sidaasi darteed hadda ka hor waa xasuustaa wasaaraddii maaliyadda waa xasuustaa xildhibaan aamina halkan waa laga soo jeediyey waxaana la qoray time table sida loo bixinayo lacagtaas waxaan rabnaa inay miisaaniyadda ka muuqato lacagtaasi inta ay tahay xildhibaanadii hore iyo dabcan wasiiradii hore iyaguna shaqaynayay iyo sida loo bixinayo bilaha la bixinayo iyo sida loo bixinayo details in loogu qoro aad u mahadsantahay qodobkaas arrintaa waxaan rabnaa in si gaar ah xoogga loo saaro arrinta curaarta baarlamaanadii soo jiray iyo dawladihii soo jiray mudane wasiir waa cusubtahay waa kaaga mahad celinaynaa dadaalkaaga laakiin dawladdii cabdiqaasim cabdulaahi yuusuf sheekh shariif xasan sheekh ilaa hadda maxaan ku idhaahdaa mudane farmaajo hal curaar ayaa hal dukumenti baa ku wareegay dawladdan oo lagu leeyahay dawlad walibana way bixisaa waxaan rabnaa curaarta dalka lagu leeyahay in miiska la soo saaro guddi la soo saaro la baadho la arko hore in loo bixiyo la hubiyo iyo in la sajalo oo la yidhaahdo sidaasaa loo leeyahay hal dukumenti baa ilaa cabdulaahi yuusuf ilaa maanta dawladda ku dhex wareegaya xogogaal baan nuna haddaad og tahay arrintaa iyo haddii kaleba qodobka kale aan rabo inaan taabto arrinta maamulada puntland jubbaland koonfur galbeed galmudug hirshabeelle banaadir waa la qoray maxaa loo qori waayey somalilan maxaa looga tegey haddii abaaru dhacayso waxaa laga yaabaa in wax loo raadiyo magaceeda maxaa looga saaray haddii miisaaniyaddii qaranka laga saaro maxaa diidaya marka waxa ay sheeganayaan inay runta waxaan soo jeedinayaa in lagu soo celiyo oo somalilan magaceedu uu ku jira meesha shacabka halkaa joogaana xuquuq bay ku leeyihiin waxaan halka kaga hadlayn xildhibaanna matalana waa joogaan qodobka kale ee muhiimka raba inaan taabto waxay tahay mudane wasiir adoo horey uga hadlay inkastoo aad sheegtay adoo faraxsan inaad sheegtay boqolkiiba waxbaa kordhay baadna tiri annagu wax korarkaan raacaynaa waana loo baahan yahay kadib markii shaqaalihii musuqmaasuqa iyo kuwii wax kharibi jiray aad ka saarteen meesha sidaas sheegteen 216 miisaaniyaddii ahayd ma aha waxaan adiga kugu naqdiyayno laakiin waxaan rabnaa inaan aaraadayada aad ku darsato waxa meesha yaala miisaaniyaddii 216 sanadkii 2016 iyo miisaaniyadaada hadda 2017 oo dakhligii inuu kordhay aad noo sheegtay percentage-ka aad tiri hadda kuma laabanayo 289,072 baad ka hooseysaa 2016 miisaaniyaddii ahayd marka dakhligii miyuu kordhay mise hoos buu dhacay hadduu dakhligu kordhay waxay ahayd in miisaaniyaddu korodho marka 289,000 hoos baad u dhacday $72 maalin kastana idaacadaha waxaa lala taagan yahay xukuumaddu la taagan tahay in musuqmaasuqii meesha laga saaro qaadkii soo farabatay oo lacagtii badatay oo intaas kor loo kacay waxaan rabnaa marka lacagtan miisaaniyaddana kama muuqato meel la geeyeyna ma aadan sheegin meeshay aad inaan noo sheegtay qodobka kale oo aan rabo inaan taabto miisaaniyaddan aan maanta aan ansixinaynaa ama aan ka hadlaynaa waa gunno ama mushahaar kiro taleefon baabuur shidaal saliid kuma jiro iskuul cusub oo dhisayna iska daayay iskuul cusub oo dayactirayna kuma jiro isbitaal la dhisayo ama MCH tuulo laga sameeyo kuma jiro koronto iyo biyo kuma jiraan maxaa adeeg oo shacabka u qabanaynaa oo ku jira meeshan oo shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin in lagu daro ma inaga gunooyinkeena iyo mushaharooyinkeena iyo saliideena iyo baabuurkeena iyo baalki kaliya aan ansaxsanayna waxaa loo baahan yahay mudane wasiir ama wasaarad guud ahaan in lagu soo daro wuxuun at least
maxaan ku idhaahdaa wax horumar oo dalka la gelinay oo ayna noqonin inuu mushaar iyo gunda inaan ka hadlayno iyo shidaal iyo baalki qodobka aan rabo inaan ku soo gabagabeeyo mudane wasiir iyo xildhibaanada guud ahaan waddankeena priority-ga koowaad ama mudnaanta koowaad labaad iyo saddexaad waa amniga haddana amniga innaga indhaha ka tuurayn oo ma rabna inuu hagaago maxay tahay waxay tahay amnigii yaa amniga ilaaliya xildhibaan miyaa ilaaliya ma wasiir baa ilaaliya ma madaxweynaha ilaaliya ma maxaa ilaaliya maxaan ku idhaahdaa agaasimaa ilaaliya ma ilaaliyo ciidama ilaaliya maxaynu ciidamadeena u xaqiraynaa waa kuma qofka Soomaaliyeed ee maanta Soomaaliya jooga ee isaga iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa $100 ku noolaan kara maxaynu odhanaynaa ciidamadan priority-ga siinayna oo ciidamadan muhiimadda siinayna shaqaalaha rayidka qofka A grade-ka wuxuu qaataa $1,000 iyo ka badan ka B-gaana wuxuu qaataa $700 iyo ka badan C-gu wuxuu qaataa $400 iyo ka badan waxayna ku jiraan mukayf kafee bay cabayaan kobajiin baa u yaala baabuur baa u yaala maxaan ku idhaahdaa xafiis qabow way fadhiyaan askarigii furintiga joogay ee duurka ku jirayna waxaan $100 qaato ma suuragelayso waxaan soo jeedinayaa haddaan dhab tahay inaynu ka hadalno amniga dalka oo ciidamadu shaqeeyaan askariga dablaha ee xoogga dalka booliiska asluubta nabad sugidda dablaha in uu la mid noqdo markuu ugu yar yahay qofka si grade-ka ee maxaan ku idhaahdaa shaqaalaha rayidka oo uu $500 lacag ku dhow qaato $500 askariga dablaha inaynu siino saraakiishina dalacaadooda iyo garaadahooda ay ku qaataan amniga dalku waa sugmayaa markaas waxaan rabaa lacagtaasi xagee ka imanaysaa waa la isdhihi karaa lacagta aan leeyahay $500 askartaha looga dhigo dablaha saraakiishu waa inay ka badataa priority-geena koowaad waa ciidamada waa amniga xagee ka imanaysaa waxay ka imanaysaa lacagta xafiisyada ku qoran lacagta ku qoran xafiisyada dawladda madaxweynaha waxa uu qoran 5 billion xafiiskiisa ra'iisul wasaaraha waxa uu qoran 5.5 billion guddoonka waxa uu qoran 4 million wasaaradaha waxa ku qoran lacag kale percentage laga soo wada gooyo 50% madaxweynaha laga gooyo 30% na prime minister ka laga gooyo 20% laga gooyo maxaan ku idhaahdaa wasaaradaha 10% ama 25% laga gooyo maxaan ku idhaahdaa guddoonka baarlamaanka lacagtaas waa inay ciidamada aada because shaqaalaha iyo xafiisyadu mukayfiye ku jiraan meel nabadayna joogaan lacagta kale 90% ama 40% ama 50% dakhligii kordhay ciidamada ha aado lacagta kale ee dawladuhu bixiyaan lacagii ugu dambeeyay dawladda Qatar bixisay intay tahay ma naqaano waa la sheegaya ciidamada ha la geliyo lacagta Qatar ay bixisay ee dhowrka mar ay keentay sida la sheegay anagu ma naqaano miisaaniyadana kama muuqato ciidamada ha la geliyo waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga mudane wasiir priority-ga koowaad ciidamada ha la siiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed $100 kuma filla shaqaale siiyaan inay ka hooseeyaan ma aha asluub iyo